soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba maqalkayga idin soo gaaraya. Halkani waa Daawin Gaatame iyo sidoo kale page-ka Sadaqsoona. Inta waxaan iga codsanaynaa inaad noo soo follow gareysaan, subscribe saataan, videoga aad daawanayso noo like gareysaan. Maxaa yeelay videoga haddii aad noo like gareysaan wuxuu gaarayaa asxaab wanaagsan sida adiga oo kale uu kusoo gaaray. Sidoo kale uu kusoo gaaray balse comment kama aad soo bixin uu kusoo gaaray balse nomad like garan. Saaxiibayaal maanta waxaan idin soo gudbinayaa haddaba maxaa ka dhaxeeya boqorada isteelka ama Maariya iyo sidoo kale Haakal. Ma dhaba inuu xiriir jacayl ka dhaxeeyo mise saaxiibtinimo kaliya ka dhaxaysa. Iyadu waxay sheegaysaa inuu saaxiibtinimo kaliya kala dhaxayso, haddana waxaan aragnaa iyadoo in badan u masayraysa. Haakal isaguna wuxuu sheegay in boqorada isteelka isagu kala dhaxeeyo kaliya xiriir saaxiibtinimo, balse waxaan aragnaa isagoo u masayraya. Taasi ma waxaan is oran karnaa in jacayl jiro ayaa shil qarinayo, balse xiriirka jacayl ee social media ka bilowdo ma noqdo mid guuleysta mase noqdo mid sii jira. Ma sii jiri doono xiriirka jacayl ee hadda ugubka ay ka dhaxeeya Haakal iyo sidoo kale boqorada isteelka ama Maariya waxay ka baxday magaalada Muqdisho si ay kala qayb gasho xafladda 500k of flowers oo gaaray Haakal. Hayeeshee boqorada isteelka waxaa Hargeysa ku soo dhaweeyay Haakal iyo sidoo kale dhammaan familkiisa iyo sidoo kale shacabweynaha reer Hargeysa ayaa soo dhaweeyay isla markaana u kacay boqorada isteelka inay ku soo dhaweeyaan magaalada Hargeysa. Ugu dambeyn xalay waxay ahayd xaflad bye loo sameeyay boqorada isteelka kadib markii safarkii gaaban ay Hargeysa ku tagtay uu soo gabagaboobay. Hayeeshee xiriirkan ugubka ah waxaan arkaynay Qadan Ismaaciil oo ah hooyada dhashay Haakal oo si kala gacayl iyo dareen hooyanimo ku dheehan tahay umarta sooraysa ama bye ugu sameynaysa boqorada isteelka ama Maariya. Haddaba boqorada isteelka soo Hargeysa oo tagtay wuxuu ahaa inay Haakal kala qayb gasho xafladda 500k flowers oo gaaray barta TikTok-giisa. Iyadoo boqorada isteelka ay rag badan xiriir hore u soo sameysay sida Danteya, sidoo kale Suraj Moha iyo sidoo kale Ozel iyo sidoo kale Ciilow. Haddaba boqorada isteelka iyo Haakal xiriirkooda wuxuu noqon doonaa mid guuleysta mirihiisina la gurta. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo indhaha ku haya xiriirka ka dhaxeeya Haakal iyo sidoo kale boqorada isteelka. Hadda wuxuu ku soo kordhaa inaguna bartaan idinkaga baahin doonaa isla markaana idin soo tobin doonaa. aad iyo mahadsantihiin sida quruxda badan. Haddii aad nala soo gaartay ilaa gabagabada waxaan kaa codsanaynaa subscribe, sidoo kale follow iyo sidoo kale inaad noo like gareyso. Sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa hal qof oo ka tirsan familkaaga ama hal qof oo faniskaaga ama asxaabtaada ka tirsan inaad warbixinteena ila wadaagto. Dardar iyo dhiirigelin ayay naguna inoo tahay. Walaalka adigana haddii lagu soo gaarsiiyey walaashay ama walaalkay waxaan kaa codsanaynaa page-ka Sadaqsoona Facebook inaad noo soo follow gareyso iyo sidoo kale bartaan Daawin Gaatame aad noo subscribe gareysaan isla markaana noo like gareysaan videoga isla markaana comment qurux badan inaad noo soo dirto intaba hanaga ilaabin. Maxaa yeelay dardar iyo sidoo kale dhiirigelin ayay noo tahay lagu xasuustaa ka horeysa. Asxaabta aad ay ugu mahadsantahay sida quruxda badan qiimaha ku dhahan tahay ee nagula socoteen. tani ku kulmana barnaamij aynkiina oo kale waa saaxiibada barnaamijkooda kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. وأوجه عرفت إحنا صوت ما هي؟ محكلة جرو ورب إسي هاي محادي كانوا مرك عرنتاس حتى أنت أنتي وشيء قسي واي تيجي شيء واي أنا شيء عندني مش هيك كرتبة أنا شيء عندني على العيار يا
haddii la yidhaaho Waray. waxaan kuu sheegayaa Hee maxaa bisha labaad bisha الباب يحرق يوجه كذا محاولة بشربات هي بسم الله الباب يحرق بشربات هي تعالوا هذا الدي أعوذ بالله محمد سكاري مساء والله شغال ساكن محلي horta arrintii xalim garas والله waxaan wax ku sheegay horta runtii inaan ku sheegin doonay ايش هيك أنت حلوة أوجه محل عيب horta bisha labaad garanaysa مش الغداء labaad ها haddii ilaahayna gaarsiiyo arrin baa dhacaysa haddii ilaahay dhaafo وأوجه عرفت إيه وصول maaye محكلة جرو ah ورب اسمي هاي ما حد كانوا مرك عرنتاس حد عرنت أنتي وشيء بس واي شيء شيء واي inaan sheegan doonaya مش هيك كنت تبغى inaan sheegan doonaya على العيار يا horta horta anugu haddii ilaahay dhaafo